daawadaha qiimaha badan ku soo dhawow Abeka Teach. Maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa problem oo mar walba igu soo laabtay oo ah page qualification, sidoo kale qodobka labaad oo ah page restrict iyo account warning iyo wixii kaloo la xiriiro. Ugu horeyn horta intaanan u guda galin waan qodobay doonaa oo qodobka ugu horeeya ah maxaa keeni karo page restrict, page qualification iyo page warning. Inta ama in ka badan waxaa keeni karo haddii aad samaysatid Facebook page aad leedahay oo adiga aad isleedahay Facebook page isla hore dhaqsi ku dardargeli oo follow raadi, follow fake hadaad samaysatid way ku keeni kartaa. Sidoo kale waxyaalaha keeni karo waxaa ka mid ah in page kaaga hadaad soo dhigtid waxyaalo oo community guideline rules ayaa jiro oo qolada Facebook oo samaysatay. Haddii waxyaalahaas ku xadgudubtid ama waxaad copy ku keensatay ayaa keeni karto in page ka waxaa keeni karo qodobadaas haddii aad ku dhaqaaqdid in page kaaga oo halis noqdo ama risk uu galo, restricted lagu xiro, violation ama lagu xiro page quality, sidoo kale warning in lagu xiro. Intaas ayaa ku keeni karto. Marka maanta muuqaaladii hore wuu ka duwan yahay hadduu Ilaahay yiraahdo. Maanta muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sida intoodaba loo wada xaliyo. 2 step ayaa mari doonaa. Waxaan ku hormari doonaa qodobka ugu horeeya ah oo naga socodsada wiil walaalkeena oo ugu xiran page-kiisa restricted. Sidoo kale qodobka labaad oo ah solving all solutions, dhammaan xalkooda sa u gaari lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo. Bal haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro. Sidoo kale haddii aad ka mid tahay asxaabtii horey inala joogtay muuqaalkan inoo garay. Okay, aan gudagalno muuqaalkeena hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan tagi doonaa qaybtan Facebook. Facebookgayga markaan sidaan ugu dhuftay sida horey aad iyaga soo baratay. Haddii aad ku tahay asxaabta ku xiran my YouTube channelkayga Abeka Teach, waxaad tagi doontaa saddexdan option. Markaad tagtid hadduu markaas kugu xiran yahay page restrict, ugu horeyn horta waa inaad screenshot ka soo qaadaa. Ani hadda step ayaan ku tusayaa. Step-yadan mar oo xaqiiq waaye oo ku xalismi doona hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaad tagi doontaa meeshan ay ku qoran tahay help and support. Markaad ku dhufatid kadibna waxaad leedahay report a problem-kan ayaan ka gudbin doonaa. Continue ayaa dhihi doontaa report a problem. Sida markaad dhahdeed horey waa u soo baratay muuqaalo kala duwan ayaan ka soo sameeyay. Qaybtan ay ku qoran tahay include in report ayaad ku dhufan doontaa. Include in report markaad ku dhufatid waxaad tagi doontaa qaybtaas ay ku qoran tahay pages. Qaybtan pages ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa. Qaybtan markaad ku dhufatid sida halkan kaaga muuqato, qaybtan wuxuu ku dhahayaa add images, image ku soo dar ku dhahayaa. Qaybtan sarani problemka ku haysto ku qor waa. Problemka ku haysto laba qaab noqon doonaa. Hadda aniga hadan idin tusiyo qoraalkan ayaan diyaariyay. Qoraalkan oo ah cabasho ayaan ku sheegaa. Hello Facebook team, waa idin salaamay Facebook teamka. My Facebook page-kayga Facebook page Abeka Teach. Meeshaas waa ka bedeli doontaa. Facebook page-kaaga magaciisa ayaa geli doontaa. Incoming problem and problem name, magaca ama problemka markaas ku haysto ayaad u sheegi doontaa. Qaybtan waxaa dhihi doonaa your advertising account restricted, please solve this problem. Adiga hadduu ku haysto meeshan haddii ku haysto restricted oo kaliya restricted ayaad ku qori doontaa oo kadibna please solve this problem, thank you. Qofka markuu wax intuu ku qabanin horta waa la mahad celiyaa, waa la salaamaa. marka sidaas markaa sameysid
kadibna add photos ayaa taaban doontaa. add photo markaad taabatid kadibna waxaad dhihi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay send waa dirsan doontaa. kadibna insha Allah waxaan rajeynayaa in maaragtay 24 hours oo culeyskaas ama ku haysato systemkaas inuu kaaga qaadmi doono hadduu ay biiraado insha Allah. waxaan ku rajeynayaa inaad fahantay. kaalay qolobka labaad aan isla bilaawno. kalabaad isla bilaawno. ugu horeyn qodobkan wuxuu ka caawin doonaa all problems ama dhibaato waliba inaad ku xalisid oo dhanka Facebook ka haysato hadduu ilaahay yiraahdo. ugu horeyn waxaan tagi doonaa qaybteena YouTube-ka markaad tagtid waxaa jiro muuqaalo kala duwan oo Abeekatage uu soo geliyay. muuqaaladaas muuqaal ka mid ah ayaa linki description hoostiisa idin soo geliyay. linkigaas oo ah maaragtay sida loo sameeyo loogu qurux badan ku dhufo muuqaalka markaa ku dhufatid sida halkan kaaga muuqato. muuqaalka markaa ku dhufatid waxaad tagi doontaa calaamadda meeshan description haddaa maqashid oo hore aad ogeenin qaybtaas ay ku dhufan doontaa. waakina marka description waxii falfaalada meesha lagu qoro sida haddii aad maaragtay igu wareersanaa jirtay Facebook page-kayga follow soo dhah, Instagram-kayga follow soo dhaho, Twitter-ka sidoo kale WhatsApp insha Allah inay ila soo xiriirtiyaan doonay rajeynayaa. kadibna linkigana inta kugu qoran oo ah Facebook marka linkiga ayaan ku dhufan doonaa si toos ah wuxuu igu doonaa website-ka Facebook oo maaragtay qaybta ugu muhiimsan oo in wax lagu kala gudbiyo ee tahay qaybtan sare ayaan dooran doonaa. qaybta sare ah waxaan doonayaa to report an issue with pages. markay halkan markaa joogtid I want you to report issue with pages markaa joogtid meeshan subject ee kugu qoranta ayaa waxaa ku qori doontaa Facebook page. marka Facebook page dhibaatada ku haysato quality data Facebook page quality ayaad gelin doontaa. kadibna description-ka muuqaalkan meeshan waxaad gelin doontaa qoraal jiro aan soo diyaariyay. qoraalkaas ayaad ku buuxin doontaa. qoraalka markaa gelisid meeshan waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo gelisid linkiga page-kaaga. linkiga ayaan soo qaadan doonaa. okay Facebook page-keena inagey. okay markaad tagtid qaybta hoose waa copy page link waan soo koobiyeenay. markaad sidaan u soo koobiyeysid intaa baasta ku leedahay laakiin Facebook linkigaaga waa soo koobiyeysid waa soo dhigtay waad u mahad celisay. markii sidan ay tahay meeshan ay ku qoran tahay use a file qaybtan hoose use a file waa screenshot-ka aad ka soo qaatid ay maaragtay codsi aad gudbinaysid. please waxaan ku leeyahay in maaragtay aad soo qaadatid screenshot ka qaadid kadibna qolada Facebook u dirtid siday u fududeyso xil ugu horeeya lagaaga soo jawaabo. marka sida markaa dhaadid waan soo gashatay kadibna maxaa sugaysaa oo wax kale lagaaga baahno waa waxaad leedahay send ayaad dhihi doontaa waad diri doontaa insha Allah 24 hours ayagana way kaaga soo jawaabi doonaan haddii ay bilaayado. waxaan ku leeyahay markaa tan intaan kulmi doono muuqaal caynkan oo kale waxaan idinkaga tagi doonaa. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. see you another next video insha Allah. ka dhigo Abeekatage oo helkaaga waqtigaagana ka faa'iideyso.